الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. waxaan salaamayaa dhammaan shacbiga Soomaaliland iyo saxaafadda madaxa bannaan. ugu horeyn waxaan Ilaahay ka baryayaa gacmahana hoos dhiganaynaa in Ilaahay mid madar khayr qaba in siiyo oo degdega abaartana inaga jabiyo. waxaan kaloo ugu baaqayaa xukuumadda inay wax ka qabato sicir bararka xarkaha goostay. ganacsatada waxaan ugu baaqayaa inay dadkooda u tudhaan una naxariistaan. shacbiga Soomaaliland waxaan u sheegayaa in doorashadii madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ku mudaysan tahay 13 Noofambar 2022. cid ku muransani ma jirto. cid ku murmi kartaana ma jirto. waxa galaya oo sharci ah saddexda xisbi qaran ee hadda jira. doorashada madaxtooyada Soomaaliland waa doorashada kaliya ay u dhan yihiin xeerkii lagu maamuli lahaa farsamadii iyo miisaaniyaddii lagu hirgelin lahaa. shacbiga Soomaaliland waxaan kaloo ugu baaqayaa inay si muglo oo waafiyo weyn ugu diyaar garoobaan diiwaangelinta codbixiyayaasha. waxaan kaloo shacbiga Soomaaliland meel kasta ay joogaan u baaqayaa inay si weyn ugu diyaar garoobaan doorashada 13 Noofambar iyo isdiiwaangelinta oo iyaduna inoo bilaabi doonto bisha 5 ee sanadkan. waxaan si gaar ah u dardaarmayaa taageerayaasha xisbiga wadani oo aan leeyahay si weyn u diyaar garooba. labada doorasho ee kale doorashada axsaabta qaranka iyo ururada iyo doorashada golaha guurtidu way ka dambeynayaan ta madaxtooyada. diiwaangelinta ururada waxaa loo raacayaa xeer nambar 14/2012. ururada buuxiye shuruudaha ee la siiyo liisan ku meel gaar ah ee ururnimo ayaa la tartami doona axsaabta qaranka doorashada madaxtooyada kadib marka loo diyaariyo xeer lagu maamulo doorashadaas oo aan hadda jirin. kala soo horeynta doorashooyinka ma aha arrin u taala madaxweynaha. arrin aniga ii taalana maaha. arrin cid kale u taalana maaha. xeerarka doorashooyinka iyo dastuurka qaranka ayaa loo raacayaa dhammaan doorashooyinkaas. maamulka doorashooyinka waxa iskale guddiga doorashooyinka qaranka. ma jirto xisbiye noqonaya ururo. mana jirto ururo ka qayb galaya doorashada madaxtooyada. xisbiyada qaranku sida uu tilmaamayo xeer 14/2012 waxay leeyihiin muddo jiritaan oo qaanuuni ah oo ah 10 sano. cid awood u leh inay hal maalin ka dhinto ma jirto sida aan looga dhimi karin maalmo muddada xileedka madaxweynaha oo ah 5 sano. markii u horeysay ee Jamhuuriyadda Soomaaliland laga qabto tartanka axsaabta iyo ururada maaha sanadkii 2012. anigu waxaan ka mid ahaa ururadii isdiiwaangeliyey. waxaana isdiiwaangeliyey 15 urur. waa shuruudihii buuxiyey 5 urur. axsaabta qaranka ee jirtay may noqon ururo. waxaanay kala ahaayeen kulmiye, ucid iyo udub. xeerku waxa uu tilmaamayaa inay tartamayaan axsaab iyo ururo. waxaa tartamay 5 urur iyo 2 xisbi iyadoo meesha uu ka baxay oo tartanka ka hadhay xisbigii udub. ururada tartamay waxay la tartameen Muuse Biixi oo kulmiya, Faysal Cali Waraabe oo ucida. ururadaana waxaa ka mid ahaa wadani oo anigu gudoomiye ka ahaa, Mujaahid Xasan Ciise oo xaqsoor ka ahaa,
دكتور قبوسي ريراع وكسعودي وركا ومضى إسماعيل هذا إسماعيل يره وقدومية كاها دلسان حسن قافاني والرئيس كاها قدومية ترتن كات شنطة ورورية اللي بدأ حسبي وعكو قولوا يستيري حسبي وقدبان حسبي كلمية حسبي وطني حسبي وعد waxaan kaloo shacbiga u bayaaminayaa xeerka doorashooyinka guud ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo xeerka nambarkiisa la yiraahdo 19 2020 oo madaxweyne Muuse saxeexay dhaqanna geliyay uu qeexayo waxa loola jeedo doorasho qaran doorashooyinka qaranka xeerku wuxuu ku tilmaamay saddex doorasho oo kaliya waxaanay kala yihiin doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka doorashada golaha wakiilada iyo doorashada golayaasha deegaanka ma jirto doorasho kale oo xeerjideeyay oo ay guddiga doorashooyinku qaban karaan doorashada lama qaban karo xeer la'aan waxa yaab leh in shalay madaxweynuhu uu awoodii doorashada iyo maamulkeedii ku wareejiyay ciidamada qaranka isagoo sidaas ka hor sheegay saraakiil ciidan oo u xiriyay tababar taasi waxay u muuqataa tallaabadii ugu horeysay ee xukuumadda Muuse kaga guureysay hanaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka xorta ah ee xalaasha ah waxa uu ku tiraabay saraakiisha hortooda in ciidanku maamulayaan ololaha xisbiyada in ciidanku maamulayaan doorashooyinka in ciidanku maamulayaan cadaaladda sanaaduuqda doorashooyinka iyo doorashada kadib cadaaladda sanaaduuqa waa xeerku siiyay guddiga doorashooyinka qaranka ciidamada qaranka doorkoodu waa ilaalinta ammaanka doorashooyinka iyo sanaaduuqda doorashada dastuurka iyo xeerka qaranku waxay ka reebayaan ciidamadu inay ku milmaan siyaasadda sida ku cad dastuurka qodobka 123 iyo 124 waxaan ciidanka qaranka ugu baaqayaa inay u hoggaansamaan dastuurka iyo xeerarka qaranka kana fogaadaan ku milanka siyaasadda sida uu farayo dastuurku ugu dambeyn waxaan hambalyeeynaya munaasabadda maalinta caalamiga ee haweenka dunida gaar ahaan haweenweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Allah mahad leh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته